soo dhawaada waa mar kale koox caabi ku soo dhawaada broadcast-gayga cusub ee Cabfit isla markaana aan ku weydiino su'aalo kala duwan dad kala duwan isla markaana ka shaqeeya caafimaadka qaybihiisa kala duwan ee tahay dhakhtarka caadiga ee tahay nutrition ee tahay ardayda jimka cusub ee tahay fitness coach caawa waxa ay casuuman runtii qof oo taqaanaan Queen Hawa isla markaana runtii qayb weyn ka qaadatay yani sidii jirkeeda u bedesho horumar wanaagsan ka sameysay isla markaana gabdho badan oo doonaya in jirkooda ay bedelaan runtii oo tahay caawa faa'iido gooniya wax yar nagu fahmi doonaan sida yani Queen Hawa ay isku bedeshay jirkeeda uga shaqeysay maantana ay ku faanayso heerka maanta ay joogto dad badan runtii u baahan waan hubaa inay u baahan tihiin inaa maqashiin sheekadeeda Queen Hawa ku soo dhawaad broadcast-giga Cabfit waa mahadsantahay walaalkay wadhawahay intaan ugu gelin su'aalaha Queen Hawa oo qofma Queen Hawa waa fashion designer hooyo xaas waa maxay jim maxaad ka aaminsan tahay fitnesska fitnesska aniga waxaan ka aaminsanahay inuusan ahayn bas wax oo weight gain ama lose weight oo ahayn oo sidoo kaleeto qofka mentally caawi karo like meesha markaad tagtid oo workout soo samaysid in fresh aad dareemaysid energy aad dareemaysid oo like maskaxiyan uu ku caawinayo ma fahamtay waxaan hayaa sheekada ah in yani aad markii hore ahayd overweight runtiina aad murugo iyo niyadjab mataqaanaa aad dareemaysay xilliga asaga ah deetna aad go'aan qaadatay oo jirkaaga aad bedeshay heer maanta aad joogto xilli joogaaga iyo jirkaaga ku faraxsan tahay bal sheekada iga sheekay ma ku faraxsanayno because marka gabartahay marka hooyo noqotid meslo kadib alxamdulilah cunugteeda labada markaan dhalay waxaan go'aansaday aan isbedel sameeyo ma faraxsanay inaad dhahdido fadhiisid waa laga fiican yahay in haddaad waxa ku faraxsanayna isbedel ka samayn kartaa fiican so alxamdulilah dan xajigayga la tashtay waxaa waaye asna garbayno iga siiya sidee kulus gareeda weydka dabcan maadaama aad markaas hooyo noqotay bebi kuu joogay caqabad badan kusoo wajahayso isla markaana aad go'aansatay in yani kastoo miisaanka aad dhinto bal miisaankaaga sidee u dhintay horta jim intaana bilaabin guriga waxaan ku bilaabay wax diet la dhaho aad iyo aad like cunada siyaadadoo kale inaan iska jiro cunada iska nidaamiyo si ay ma aqaana inay saxan tahay in kale laakiin calooshaas ay ula yara qabsato baahi yani cunada siyaadada aan iskaga kala jiro cashadan ka tagay koodii then cunooyin khafiifa oo healthy aan cunayay dan markaan dareemay inaan macquul tahay inaan jim bilaabi karo aade markii jimka aad bilaabaysay dabcan daayada bilowday dan waxaas ka garatay deetana jim ayaa bilowday jimka markaa bilaabaysay caqabadaha ka kulantay maxaa kamid ahaa caqabada ugu weynayd waxay ahayd in oo aad igu adkayd horta exercise-kan la qabsado yani jismiyan qofka markuu la soo qabsaday guriga inuu iska fadhiyo raaxo nasiino uu ku jiray oo jirka la bilaabo inuu workout sameeyo waxaa waye way adag tahay waxaa xasuustaa macnaha in ay yani aad igu adkeyd oo aan markan jimka kasoo tagayo aan dhahayo maanta igu dambeysa ma usoo noqonayo waa ku rafaada meeshaan laakiin beri markaan tana aan soo kaco aan u xamaasadaysanaan ku noqon jira ma fahamta aad iyo aad waxaa jir dabcan gabdhaha Soomaaliyeed marka yani ay umraan oo kale inay waxaa dhacda ay yani isdaayaan oo kale oo aysan fadhiga ka kicinin oo mushaari isu wadalaan isla markaana weyd mutaqa ay noqdaan maadaama experience adiga aa u leedahay arrinkaas isla markaana aa guulka gaartay maxaa kula talinaysaa ra'yiga walaa aan horta ka hooyo ahaan mogtaha marxalada qofka soo maray le ka hadli karo maadaama ani hooyo ahay waxaa dhihi karaa adagta hooyada inay cunooyinka qaar iska ilaaliso maadaama ilmo nuujinayso baahanayso like yani baahida xad dhaaf waaye so ma ani ahanteeda inta karaankeeda hadday iska celi karto waxyaabaha qaarkood inay iska kala nidaamiso haddii kaleetana ka alxamdulilah ilmaheedii fridge bu tahay so cunugaaga iska inay ilmaheeda iska daryeelato then maybe hadhow markii cunuga uu kasoo gudbo nuujiskii inay isku dadaasho ayada
laakiin inta ilmaha nuujinaysid way adag tahay inaad xakamaysid waxyaabaha qaarkood because yacni gaajada dadka normalka ay arkaan way ka badan tahay halka mara ilmihii la nuujiyo wadnaha maamada tagayaba yacni daciif zaid dareemaysaa ma fahmi isla marka hadda wixii soo cunta xataa isla marka waa lagala baxay marka ma dhiirada marka maadaama yani cuntada aysan jooji karin waa inay sameeyaan access dee lagu lahayo kale si yani kabis fiican ay u gubaan waxyaabihii qaar ay sameyn karaan waqti xaadirkaas inay sameeyaan ku fiicnaa leed socodka kaleeto inay socdeer aadaan guri dhexdiisa day ku yara sameyn karta exercise yara sameyso aad marka uu ku cusub yahay jismiga exercise ka waxaas leeyahay waa dhibsane qaar way isqiyaamaan marka si sax ma u sameynayaan naftooda raacraacayaanoo waqti xaadirkaas waa daalan tahay naftaa ku haysa moogta waxyaabaha qaar si sax ma u sameynaysa waxaa u ogolaanaysaa naftaada inay waxyaabaha qaarkood isdhaafiso marka aniga anoo marar qaar ooyin ku dhow waxaa dhacaysa laakiin in isku adkeeyo aan sida saxda u sameeyo si bal natiijada aan rabay meesha u imaadayeen waqtigu soo geliya aan u helo maasha allah sharaf ay tahay inaa barnaamijka qasab muuqato caawa asxaabta qaaliga aad maasan tihiin waxaa barnaamijka qayb la qaadanaya walaashin Queen Hawa isla markaana ka sheekeynaysay historigeeda finiska iyo maanta heerka ay joogto isla markaana ku dhiirigelinaysa gabdhaha Soomaaliyeed in yacni ay jirkooda dhisaan haddii tahay yani hooyo markaas umushay haddii tahay gabar iska caadiya in yacni ay qayb weyn ka qaadato in yacni ay ku dadaasho jirkeeda ku dadaasho caafimaadkeeda ku dadaasho mustaqbalkeeda si mataqaanaa hormo u noqoto dhalinyarada markaas ay ku xiriirto waxaan filaa in aad runtii ka qaadan doontiin tusaale wanaagsan walaashin Queen Hawa oo runtii tusaale weyn u ah dad badan oo doonaya inay jirkooda bedelaan waxaan rajeynayaa in aad ku soo biir doontaan fitnesska haddii aad jeceshahay ka hadasho fitness storygaaga haddii aad jeceshahay inaad la walaagto storygaaga waxaan ku faraxsanahay kugu casumo broadcastigayga Coach Cabfit isla markaana aad u faa'iideydo dad badan oo u baahan inay ku maqlaan mar kale iyo Coach Cabfit